مدن محمد بر محمود وزيرك وزارة الدليرة هي عيارها 2 أغسطس waa maalintii lagu dhawaaqay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee halkudhigeedu yahay dan qaran. Liiska wasiirada waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Barre Maxamuud kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maxamed Barre Maxamuud ayaana ka mid ahaa wasiirada kuwa ugu dhalinta yar ee ka soo muuqday golaha laguna soo xulay aqoonta iyo waaya aragnimada qotada dheer ee uu leeyahay hawshan. 13 Agost ayuu si rasmi ah ula wareegay xafiiska wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha si loo dardargeliyo howlaha. waxa uu isla Agosto 17keedii booqday xarumaha dhalinyarada ee degmooyinka gobolka Banaadir. isla maalintii xigtayna waxa uu socdaal indhayn ku tagay garoomada isboortiska ee ku yaala magaalada Muqdisho. 31 Agost waxa uu xafiiska ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe Marwo Anita Kiki oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira horumarinta dhalinyarada. 3 Sebtembar waxa uu la kulmay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cawaale Axmed Aw Cali oo ahaa ardaygii kaalintii koowaad ka galay imtixaankii guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda sanad dugsiyeedkii 2020-2021. Cawaale Axmed ayaana helin fursadii deeqda waxbarasho ee uu xaq u lahaa. daruufihii inoo goonida ahaa ee xasilooni la'aanta siyaasadeed iyo kuwii adduunka aan la qabnay ee COVID-19 darteed. wasiirka oo gudanaya waajibkiisa u qareemidda dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ka howlgalay in wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdulqaadir uu isku xiro si wasaaraddu mudnaanta uu xaq u lahaa u siiso. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa u ambabaxay 6 Sebtembar dalka Sacuudiga si uu uga qayb galo shirka wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee wadamada Islaamka. isaga oo ku horjeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa isla markaana uu ku codsaday in la yimaado fikir midaysan oo ay dunida Islaamku ku wajahdo argagixisada maadaama aanu nahay dhibanayaasha koobaad. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa waxa uu bishan Sebtembar 13keedii kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada Soomaaliyeed ah oo ka socday madasha Kasmaal Forum kuwaas oo ah madal cilmiyeed ka dhisan dalka Uganda. wasiirka ayaa madasha Kasmaal waxa uu ku bogaadiyay shaqada baaxadda leh oo ay bulshada u hayaan isagoo oo sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay in la dhiirigeliyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah. waxaa kale oo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha booqasho sharafeed ugu yimid madaxa ergeyga jaamacadda Carabta ee dalkeena Danjire Saalax oo ay ka wada sheekaysteen sidii jaamacadda Carabta ay noogala shaqayn lahayd dib u dhiska garoomadii ciyaaraha iyo sidoo kale mashaariic kale oo lagu horumarinayo dhalinyarada Soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa uu ballan qaaday in dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba ay garab istaag buuxda siin doonto wasaaradda isagoo oo sheegay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sameyn doonto fagaare ee hibadooda iyo xirfadooda ku soo bandhigaan dhalinyaradan. waxaana uu ballanqaadkaas sameeyay mar uu xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamed Barre Maxamuud oo dareensan muhiimadda ay leedahay dib u howlgelinta kooxdii fanaaniinta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Danan ayaa waxa uu sidoo kale kulan la qaatay kooxda dhalinyarada ah ee fanaaniinta iyo abwaankooda Xirsi Dhuux oo hadda ku howlgala magaca Hiddo waxaana uu hadda qorshuhu yahay in ay qaataan magacii rasmiga ahaa ee Danan. waxaa kale oo weli socda qorshayaal badan oo ay wasaaraddu dejisay kuwaas oo lagu horumarinayo dhalinyarada iyo sidoo kale isboortiska. wasiir Maxamed Barre Maxamuud ayaana la yimid howlkarnimo tan iyo markii uu xafiiska yimid oo ah muddo kooban. waxaana durba soo gaaraya xafiiska wasaaradda fariimo dhiirigelin ah oo ah in wasaaraddu heshay shakhsigii ku habboonaa.